kale oo xiiso badan barnaamijkeena taxanaha caafimaadka oo marba mowduuc aan kusoo qaadano. Toddobaadkanna waxaan sii wadi doonaa barnaamijkii toddobaadkii hore aan soo qaadanay oo ahaa cilladaha shakhsiyadda. qaybtii noocyada cilladaha shakhsiyadda ayaan bilownay. qaybta ugu horeysa ama kooxda koowaad ayaan maanta ku faaqidi doonaa barnaamijkeena ee kusoo dhawaada. Daryeel Medical Consultation waxay ku haysaa dhakhaatiir heer caalami ah adigoo jooga gurigaaga toos dhakhaatiirta kula xiriirsiinayso. Waxaa muhiim ah inaad hesho la talin caafimaad marba haddii aad xanuunsan tahay. Sidoo kale Daryeel Medical Consultation waxay ku haysaa haddii xanuunkaagu dalka wax looga qaban waayay isbitaallo iyo dhakhaatiiro waaweyn wadamada Turkiga, Shiinaha, Malaysia iyo India inay kala tala bixiso dhakhtarada ugu wacan iyo isbitaalada ugu wacan wadamada aan kor ku soo xusnay. idinkugu soo sheegay barnaamijka taxanaha caafimaadka toddobaadkan wuxuu la xiriiraa barnaamijkii hore ee cilladaha shakhsiyadda. waxaana ka hadlaynay noocyada cilladaha qaybta koowaad ama kooxda koowaad ama cluster A. waxaana aan maanta ku qaadan doonaa qaybtaas iyadoo aan ku faaqidi doono noocyada cilladaha shakhsiyadda qaybtiisa koowaad. nooca schizoid type waa nooca ugu horeeya aan ku qaadanayna barnaamijkeena. qofkan waa qof badanaa bulshada ka go-an, keligiis inuu noolaado jecel, qof leh dabci aamusan, aanan jeclayn inuu wax xiriir sameeyo, mid qoys iyo mid saaxiibtinimo. saas oo ay tahayna waa qof shaqada iyo waxbarashada ku ficnaan kara, mustaqbalkana guul ka soo hooyi kara. dadka noocana haddii ay ka tagaan dadka ay la nool yihiin, dib dambe warkooda looma maqlo oo ehelkooda ma soo xiriiriyaan. guurkana wuu ka daahaa maadaama aysan si sahlan xiriir ku samayn karin. qofkii aanan la dhaqminna qofkan ma fahmi karo. nooca paranoid ama paranoid type, qofkan waa qof shaki badan, wixii aad dhahdo si qalad ah ayuu u fasirtaa, si sahlan wax loogama dhaadhicin karo, qof kuma kalsoonaan karo, dambi haddii aad ka gashid kuma cafin doono, si dhaqso ahna wuu u xanaaqaa isagoo ku arki kara qof aan la aamini karin, daacadnimadu kugu yar tahay ama khiyaanola ah. wuxuu kaloo qofkan yeelan karaa dabci masayr xad dhaaf ah oo aan jeclayn in arrimihiisa la fara gashto. markaa aragtidna waa qof aan kaftan badnayn, sidaas oo ay tahayna bulshada ayuu ku dhex nool yahay, waxaana fahma inay wax ka qaldan yihiin qofkii la dhaqma un. nooca schizoid type ama schizoid type, qofkani wuxuu leeyahay dabci ka duwan dadka kale, khaasatan dhinaca hadalka, labiska iyo dhaqanka. nooca bulshada ma soo dhex galo, isagana meel la isugu yimaadana kama hadlo. wuxuuna ku hadli karaa hadallo bulshada ka yaabin kara, sida inuu leeyahay awood dheeraad ah oo uu ku saadaalin karo mustaqbalka waxa dhacaya ama dadka kale waxa ay ku fakarayaan. haddii uu xanaaqo isagoo lala hadlaya wuu aamusaa ama isagaa isla sii hadla intuu meesha ka kacayo. noocan aad uma badna laakiin wuu jiraa oo bulshada dhexdeeda waa lagu dhex arkaa. barnaamijkeeni taxanaha caafimaadka kulankeeni maanta oo noocyada cilladaha shakhsiyadda qaybtiisa koowaad aan kusoo qaadanay ama kooxda koowaad cluster A. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. barnaamijkan waxaa soo diyaariyey Somali Talk, anigana waa idin la socodsiinayay.